soo dhawaada akhyaarta waa barnaamijkeeni sideedu badbaadi lahayd oo maanta aad u xiiso badan waxaan ka codsanayaa inaad saarto muuqaalka like mahadsanid haddii aad maqasho cod aad fahmi weysid inta aad ku sugan tahay jasiiradda Commando ha u bixin banaanka si aad u soo hubiso codkaas waxa uu yahay waxa laga yaabaa inaad si kafool iskaga hor imaataan xayawaanadan arxanka daran ee xooga badan waa ugaarsadayaal aad u gaajeysan waxay arkaan cunaya lagama yaabo inaad noolayaashan orod aad kaga baxsato sidee ayaad uga badbaadi kartaa xayawaankan halista badan masduulaaga Commando haddii aad u maleynaysay in masduulaaga sheekooyinka uu ku jiro waxaan ku hayaa waxyaabo ka yaabinaya midkaani waa masduulaaga Commando waxa uu leeyahay ilka la mid ah kuwa libaaxbadeedka muruqa xoogan iyo awood uu dhulka ku dhigi karo ama uu ku ugaarsan karo bil'aadamka masduulaaga Commando culayskiisu waxa uu gaaraa 130 kilogram dhirkiisana waxa uu gaaraa ilaa 3 mitir xayawaankan waxa laga helaa dhowr jasiiradood oo ku yaala wadanka Indonesia qiyaastii 5700 oo xabo ayaa ku nool 2018 176 ayaa booqatay jasiiradda Commando adiga laftigaaga waa lagu ogol yahay inaad ku dhex safarto beerta raaxada ee Commando National Park laakiin waxa lagaaga baahan yahay inaad sameyso taxadar badan waxa laga yaabaa in masduulaagan gadaashaada uu ka soo baxo su'aalahan ayaa kugu soo dhacaya orod ma looga baxsan karaa haddii uu ku qaniino ma loo dhintaa qaniyadiisa ka waran haddii aan ka cararo anigoo geesgees u socdo laga soo bilaabo 1974 xayawaanadan waxa ay dileen 31 qof 5 ka mid ah dadkaas ayaa dhintay haddaba waxaan kula wadaagayaa tallaabooyin aad kaga badbaadi karto qodobka koowaad kaliya ha bixin masduulaaga Commando marka uu ugaarsanayo waxa uu jecel yahay inay ugaartiisu tahay mid beelaha oo aysan qofna la soconin markasta dadka ku dhex jirhana ka dhex bixin sidoo kale kireyso qofku kala bara oo aad u yaqaan si aad uga badbaado xayawaankan qodobka labaad ha ka leexanin wadada aad iyo aad ay muhiim u tahay inaad marto wadiiqooyinka loogu talagalay wadada haddii aad ka beerto wadiiqooyinkaas waxa laga yaabaa inaad halis u gasho inuu ku soo weeraro masduulaaga Commando dhab ahaantii waa kuwa aad ugu fiican isqarinta iyo hoosaska guryaha dhaadheer waxay isku qarin karaan cooska dhexdiisa qodobka saddexaad aad ha ugu dhawaanin haddii aad ku dhawaado masduulaagan waxa uu dareemi doonaa khatar waxaana suurtagal ah inuu ka jawaabo kuna soo weeraro xitaa haddii aad meel fog ka daawanayso mararka qaar waxa uu dareemi karaa cabsi waxaana laga yaabaa inuu kugu soo boodo qodobka afaraad ha iska badin waxyaabaha carafta badan Commando dareenkiisa urinta waa mid aad u sareeya haddaba ha isticmaalin waxyaabaha udugooda uu aad u xoogan yahay taas waxay gelin kartaa nafsadaada khatar dumarka caadada qaba looma ogola inay ka agdhawaadaan xayawaankan sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu ka uriyo xoogaa dhiig ah marka xayawaanadan dhiigaas ay uriyaan waxay u maleynayaan inay soo gaartay ugaadhooda ka dheeraaw qeylada haddii aad qeyliso xayawaanadan waxa ku casuumta nafsadaada waxayna u soo kala farxad doonaan inay ku cunaan ayagoo u maleynaya in la soo weeraray qodobka shanaad oo orod qaab qalqalooc ah haddii qeyladaada uu ku soo ordo masduulaaga dhankaagana uu soo aado waa inaad u orodaa qaab qalqalooc ah ama zigzag ah akhbaarta wanaagsan waxa ay tahay inaad ka orod badin karto sababtoo ah waxa uu jari karaa xayawaankan 22 kilomitir saacadii laakiin way ku adag tahay inuu xawaaro toos sameeyo haddii aad u jajarto waa uu daali doonaa kadibna waa uu ka hari doonaa xitaa haddaad tahay mid orod gaabiya haddaba si aad uga badbaado masduulaaga waxa uu ordi karaa si toos ah weliba asaga oo gaabiya waxaan lagaaga baahan yahay inaad u orodo qaab qalqalooc ah kadibna way ku adkaa doontaa inuu ku soo gaaro haddii aad hesho guryo ka samaysan alwaax oo jaranjaro leh ka kor sababtoo ah xayawaanada ma kori karaan jaranjarada laakiin kuwa yaryar geedaha waa ay kori karaan ha u maleyna marka fursad aad ku badbaadi karto geedaha qodobka lixaad la dagaal masduulaaga dhab ahaantii haddii uu ku qaniino xayawaankan nasiib darro waa arrin aad u xun kuwa waaweynna waxa ay ku daba socon karaan hal mayl ayaga oo sugaya in ay sunta jirkaaga ay ku faafto kadibna ay ku cunaan markuu ku qaniino kadib waxa ku dadaashaa sidaad uga fakan lahayd masduulaaga ma ku dili kartid feer ama dharbaaxsho sababtoo ah waa mid aad u xoog badan haddii uu yahay mid weyn waxa isku daydaa inaad indhaha ka geliso wax ama afka aad wax kaga jabiso haddii uu yahay mid yarne afkiisa kala qabo kadibna iska fuji atirishada Sharon Stone ninkeeda ayaa waxay u sameynaysay hadiyad dhalasho oo qaas ah labadoodana waxa ay booqdeen beer ku taal Los Angeles oo uu ku xirnaa masduulaaga wuxuuna qaniinay ninkeeda kadib afkiisa ayuu kala furay wuuna iska fujiyay masduulaaga qodobka toddobaad dhaqso ama waa dhimanaysaa
sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad wacdaa shabakadda gargaarka degdega ee caafimaadka si lagu caawiyo lagaagana daaweeyo qaniyada uu ku geystay iyo sunta masduulaaga. Inaad daryeel caafimaad hesho waa waxa ugu muhiimsan. Dhaawaca ku soo gaaray iyo dhiigga kaa baxay waxa uu soo jiidi karaa inay ku soo weeraraan xayawaano badan. haddii ay dhacdo inuu si kaliisa ku dhaawaco, ku laabo raadkaagii ama meesha aad ku timid, sidoo kale qaado ula dhaadheer oo aad iskaga fogaanayso. inta badan ma weeraro bilaadanka sababtoo ah ma yaqaano si loo ogaarsado bilaadanka, laakiin xayawaankan ayaa u muuqda mid deegaanka uu ku noolaa oo sii baaba'ayo. taasina waxa ay keentay inuu khatar geliyo bilaadanka.